kasoo diyaariyay shir ay yeesheen wadaadda sheedaan kasoo jeeda gobolka Soomaalida Ogaadenya ayna ku yeesheen magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota taariikhdu markay ahayd 7 bishii 8 2010 shirkan oo ahaa shir ay kasoo qayb galeen niman isugu jira wadaado isu dhiibay maalin dhaweyto cadawga Itoobiya iyagoo oo raali gelinaya iyo niman macaan jecela oo had iyo jeer jecel meesha uu macaanka ka dhow yahay ayaa waxa shirkaasi isagana kasoo qayb galay dadweyne aad iyo aad u careysan oo kasoo horjeeda nimanka iyaga ah ee fariinta cadawga soo dhiibay gudbinaya haddaba shirkaasi ayaa runtii ku dhamaaday sawaxan iyo qeyli iyo dagaal kadibna waxa halkaasi markii dambe soo gaaray ciidamada booliska ee nabad ilaalinta ee magaalada St. Paul kadibna ciidamadaasi ayaa waxa ay kala kaxeeyeen dadweynihii halka isugu yimid haddaba dadweynow waxa isweydiin mudan nimankan iyaga ah ee cilmaamadaha iyo qamiisyada beebeenta qaba inay yihiin niman runtii ka talinaya kala dhantaalka iyo kala kaxeynta shacabweynaha bulshada reer Ogaadenya oo aan inaba aan u tureenin nimankaasi ayaa bariyahan dambe waxa laga soo sheegayaa in gobolka ay ka wadaan boob aad iyo aad u ballaaran iyo dhac oo ay ku hayaan dadweynaha dhulkooda kadibna ay halkaasi ay rabaan inay guri ka dhistaan laakiin aan inaba aan u suroobenin in ay xoolo dad muslimiin ah ay leeyihiin ay si fudud ay ku qaataan haddaba dadweynuhu cadawga Itoobiya ayaa runtii ku haya dib aad iyo aad u fara badan dadweynaha Soomaaliyeed ee reer Ogaadenya dibkaasi oo isugu jira dhac iyo kufsi iyo dil intaba cadawga ayaa bariyahan waxa uu bilaabay in uu soo wakiisho niman Soomaali ah oo magaca wata laakiin runtii aanan Soomaali aan shaqo ku lahayn oo u adeegaya cadawga Itoobiya haddaba guusha waxa ay u dambeynaysaa ninka xaq u dirirka ah ee ka dhidhinaya dhibka dadkiisa lagu hayo